run waxaan saxinay doorasho qof iyo cod ah doorashadaas qof iyo codka ah waa sharciga aan baasinay laakiin waxa la soo dib loo soo celiyay afar qodob oo ku jiro qoondada haweenka gobolka Banaadir iyo kuraasta sidii meelihii la geyn lahaa maadaama aanu nahay haweenka Soomaaliyeed annagu waxaanu ka soo bilownay waqti dheer garoowan iyo garowato yaanu ka soo bilownay qoondada haweenka waxaanu ku bilownay 10 waxaanu ku bixinay 20 waxa kordhinay 30 kii maanta waxaan maraynaa boqolkiiba 24 lix kursi baa naga maqan ugu yaraan boqolkiiba 30 meesha way ku muuqataa kaba aanan tagin kuraasta ragga gabdho waa la tartami karaan lixda kursi ee naga maqan gabdho waa u tartami karaan laakiin waxaan xaqiijinaynaa oo aan isdul taagaynaa 24 kursi ee maanta baarlamaanka fadhiya inay gadaal u noqon sababtoo ah waxa weeye dumarku waxa weeye hay'ad kamid ah hay'adaha dadka kamid ah dalka waa lama qarin karo lamana xaqiri karo haweenka Soomaaliyeed marxaladii adkeyd ee wadanku soo maray intuu hadda ku jiro labadaba haweenku waxay ka yihiin lafdhabar sida awgeed annaga waxa la yiri colo kuma yeeleen sharto khayr kuma yeeleen sharto kee annaga sharto bantu khayrina moodiye ugu yaraan boqolkiiba 50 baan u soconaa gabdhahan xaqirana ma jirto gabdha la xaqirayana ma jirto saddex doorashada shantii doorasho dalku galay saddex doorasho oday baa qoray hal doorasho kaliya la tartamay ah tii hadda konton iyo konton lagu soo baxay gabdhuhu waa ku soo baxeen ilaa 5 gabdhood oo la tartamay baarlamaanka fadhiya kuwa 4 la tartamay baa fadhiya kuwa 3 la fadhiya baa tartama gabdhuhu tartanku waa u furayay ma aanan xidhin laakiin kuraasta waa xaqiijinay haddaanu xaqiijinana mar rabno inaan dib uga noqono intaasaanu leenahay oo xaqiijinayna mana ka laabanayno gabdhahana ma xaqirano boqolkiiba